السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وايد سلامية صحابتا muuqaalkan maanta waa ka gedisanaan doonaa xogaa muuqaaladii hore ee ay sababtu tahay waxaynu eegi doonaa dul istaagi doonaa falanqaynta siyaasadda khaasatan warkii ugu dambeeyey ee ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Kenya kabacdi markii madaxweynaha Somaliland uu safar ugu baxay xagga iyo Kenya. haddaba waxaynu eegi doonaa warqadan qodobada ku qorani oo kuwa taageeri doonaba shirkii iyo waxyaabihii ka soo baxay halka mise waa run ahaantii kuwa dhabarka ka jabin doona maxay yihiin inta ugu muhiimsan ayaynu taaban doonaa isla socod wanaagsan. waayahay warqadu sidan ayay u dhigneed markaa statement on waa bayaan ku aadan bilateral relations xiriirka labageesoodka ah between u dhexeeya the Republic of Kenya Jamhuuriyadda Kenya and Federal Republic of Somalia Jamhuuriyadda Soomaaliya. waayahay haddaba qodobada ayaynu soo qaban doonaa run ahaantii waxaynu isdul istaagi doonaa qodobada muhiimka meelaha ay tahay inaynu ka hadalno falanqayno ayaynu taaban doonaa. marka koowaad intaanan gudagelin akhrinta warqadda waxaan idin xasuusinayaa in ay warqadanu meel weyn kaga dhacday qadiyadii Somaliland ee ahayd gooni istaaga inaynu nahay waddan maxay tole madax bannaan inaynu nahay dal run ahaantii gaarkiisa isu taagay oo aan xagga iyo Soomaaliya laga xukumin. taas ayay meel kaga dhacaysaa waxayna tusayaan Kenyaanku inay xagga kalena maxay weji wanaaga ka diyaarsanayaan walaaliheen Soomaaliya. waayahay qodobka koowaad ee aynu ka soo saari doono weeye ka koowaadu halka ay ka dafirayaan qadiyadda Somaliland. The government of Republic of Kenya Jamhuuriyadda Kenya reforms waxa ay xoojisay its unwavering commitment taageeradeedii aan kala go'a lahayn ee ku wajahnayd sovereignty qarannimada territorial integrity midnimada dhuleed waxaanoo dhan waxay ku socotay inaanay maxay ogoleen wax madax bannaani ay u aaminsan yihiin Somaliland aanay jirin. waayahay political independence of Federal Republic of Somalia madax bannaanida siyaasadeed maxay Federal Republic of Somalia ee dowladda Soomaaliya. in this regard tan markaan u eegna bay ku leeyihiin waa arrintii dhacday markaa shalay madaxweynaheenu inuu aaday Kenya. in this regard tan markaan u eegna bay ku leeyihiin Kenyaanku Kenya unequivocally Kenya si aan shaki ku jirin ayay maxay recognizes u aqoonsan tahay the authority of federal government awoodda maxay dowladda ka talisa halkee Muqdisho. halkaa waxaynu ka fahnay markaa in ay u aqoonsan yihiin awoodba dowladda ka talisa maxay caasimadda Muqdisho. taas waa qodobka koowaad ee noo cadaynaya in Kenyaanku ay tusayaan weji kale oo wanaag ah xagga iyo maxay koonfur oo ay ka diyaarsanayaan maxay sabati. waayahay aan soo laabto maxay u aaminsan yihiin soul. waayahay keli bay u aaminsan yihiin keliyaas inaanay dowlad kale jirin taasoo qole ay ka jirto. waayahay legitimate party responsible for taasoo maxay ka mas-uul ah administering in ay maamusho the affairs arrimaha Soomaaliya. inay Kenyaanku aaminsan yihiin hal dowlad taasi oo maamusha arrimaha maxay of Soomaaliya include ay ku jiraan arrimaha those pertain arrimaha khuseeya to its regions goboleedeeda khuseeya. qodobka koowaad waxaynu ka fahnay haddaba isweydiin leh haddaynu falanqayno waxaynu ka fahnay qodobka koowaad run ahaantii waxaynu ku soo fahnay inaanay Kenyaanku marnaba aaminsanayn qarannimada Somaliland oo ay ganafka ku dhufteen maxay jiritaanka Somaliland. halkaana waxay inoogu sheegeen in ay si aan shaki ku jirin ay u aaminsan yihiin awoodda ka talisa Muqdisho. waayahay haddaba arrinka yaabka leh wuxuu yahay sababtu maxay tahay markaa uu madaxweynaheenu shalay toole halkan u tegay ee uu markaa kulanka ugu qaadanayay mar haddii aanay jiritaanka Somaliland aaminsanaynba. qodobka soo socda ayaynu ku arki doonaa sababta ay ula tacaamulayeen ee ka dambaysa ila socod wanaagsan. sababta ka dambaysa markaa qodobkan ayaa loo tiirinayaa inay madaxweynaheena qaabilaan in waxa weeye ay wada shaqayn iyo wada hadalba u dhexmaro
qodobkan run ahaantii dhalinyaro fara badanna social mediahooda ay soo dhigayeen qaarkood iyagoo markaa faallooyin kala gedisan ka dhiibanayeen qaarkood ay yaaban yihiin qodobku markaa waa sidan to advance saanu sare ugu qaadno the partnership cooperation yani weeye wada shaqaynta saanu sare ugu qaadno kenyaanku waxay leeyihiin Kenya will maintain Kenya way sii socodsiin doontaa contact xiriirkay sii socodsiin doontaa and relation with iyo maxay xiriirka ay kula jirto sub national government dowlad hoosaadka ay ka mid yihiin dowlad hoosaadka maxay in Jubaland and Somaliland Kenyaanku waxay yiraahdeen Kenya waxay sii socodsiin doontaa xiriirka ay la leedahay dowlad hoosaadka ay ka mid yihiin Jubaland iyo maxay Somaliland hadaba qodobkan ayay ahaayeen qodobkii uu dhalinyaro badan soo qaadanayeen oo run ahaantii dad badan ka xariisiyay falanqeeyaal siyaasadeed iyo dad waaweyn oo markaa magac ku leh baraha bulshada ka xanaajiyay waxay sii raaciyeen markaa consultation with anagoo markaa la tashanayna iyo la tashanayaan bay kula tahay the federal government of Somalia iyagoo markaa dowladda federaalka ee Soomaaliya ka tashanaya to establish inay salka u dhigaan the contact xiriirka arrin walba ay maxay kala tashanayaan qodobkan wuxuu run ahaantii qodobkii falanqeeyaasha siyaasaddu saacadii la soo dhaafay ay aad ugu qaadadhigeen social media ay sababtu tahay qodobkan wuxuu ganafka ku dhuftay oo meesha ka saaray Somaliland inay tahay full sovereignty ama qaran madax bannaan oo aan maxay cid hoos tegin halkaa waxaanu ka fahnay Kenyaanku inay sababta ka dambeysay Somaliland inay ay wada shaqayn dhex marto ay tahay inay u arkayaan sub national government ama dowlad hoosaad taasi oo sida Jubaland Puntland oo kale waanigu Cabbaas Jaamac Ali intaynu ku kulmi doonno falanqayn sidan oo kale ahi ama warwarkan xiga waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum